hay-adda shaqaalaha dawladda Somaliland ayaa maanta kulan kula yeeshay xafiiska barasaabka gobolka Awdal istuwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Awdal kulankan oo ujeedadiisu ahayd wacyigelinta iyo tirinta shaqaalaha dawladda ee heer gobol loogana dan leeyahay in madax taabasho lagu sameeyo shaqaalaha laamaha dawladda waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda shaqaalaha dawladda Aadan Cabdi Askar iyo agaasimaha guud ee hay-adda shaqaalaha dawladda Somaliland Maxamed Ismaaciil Cilmi waxaana ka warameen ujeedada socdaalkooda iyo qabanayaan bishan horaanteedii la qabtay agaasimayaasha guud oo dhan la isugu yeeray oo wasaarad walba hawshaas ay agaasimayaasha guud lagala soo shiray waxa jira mid kale oo gobolada ka dhacaya oo gobol kasta iyo isduwayaasha oo dhan iyadana lagu wargelinayo in hawsha tirinta iyo tayanta shaqaaluhu ay imika dhawaan bilaabmi doonto wacyigelintaas oo imika aanu ka soo qabanay gobolka Marojeex iyo gobolka Saaxil gobolkan Awdalna uu yahay kii saddexaad haddaan idin ka warano socdaalka iyagu wuxuu daaranaa hadaan hay'adda shaqaalaha beriyahan waxaad maqlayseen saxaafadda kala socoteen reform waxa la yiraahdo shaqaalaha dawladda lagu sameeyo siyaasadda dawladda oo madaxweynaha ka yahay Axmed Maxamed Siiraayo ayaa waxay wadaa dardargelin iyo dib u dhis shaqaalaha dawladda Somaliland anagoo hay'adii shaqaalaha u qaabilsan siyaasadda dawladda oo hawshii anagu aanu nahay fuliyaashii waxaan wadnaa tayeynta iyo kor u qaadista shaqaalaha dawladda taa macnaheedu ah aqoonta shaqaalaha in la dhiso waxa jira dad shaqaale ah oo laga yaabo inaan laguba shaqaaleyn aqoon ay leeyihiin xirfad ay leeyihiin baba dhici karta shaqaalaha inay ku jirto waxa siyaasaddu tahay qof kasto shaqaale dawladda meesha fadhiyo sidoo uga midha dhaliyo in aqoonta uu leeyahay meesha ku fadhiyo lagu tababaro korna lagu qaado waxa soo socota diirhaydmo mashruuc kale oo ah si aynu shaqaalaha dhabta loo ogaan lahaa hadda tani waa wacyigelin goboladoo dhan bay maraysaa wacyigelintaasi hadda Hargeysa iyo Berbera soo marnay Awdal gobolkii saddexaad bay noqotay muhiimadda quule hadda meesha ku jirta waxa weeye oo aan isduwayaasha gobolka iyo barasaabka iyo dawladda aan u sheeganaa ama ka codsanaa shaqaalaha dhabta ee gobolka ka jira in la ogaado waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay barasaabka gobolka Awdal waxaana hadaladiisii kamid ahaa waxaan in qarankan in dadka u shaqeynaya noqdaan dad tayo leh gobolkan dadka u shaqeynaya ay noqdaan dad tayo leh oo shaqadooda ku filan oo xafiisyada ay u shaqeynayaan jooga oo xalaalaysta mushaharkooda oo shaqada u qabta qaranka dawladda Somaliland gobol ahaan runtii aad baan u soo dhaweynaynaa waana farxad bay noo tahay ku soo dhawaada shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adaha gobolkan waxa la inooga baahan yahay inaynu ka leexano eexda sida imika hay'adda shaqaalaha dawladdu u shaqeynayso inaynu u shaqeyno aynu eexda qof nacaybka qof shaqeynayo aan jeclayn ugu dhici karta inuu jiro taana inaynu ka leexano qof jeclaysi qof nacabaysi oo aanu si cadaalad oo Ilaahay og yahay qofkaad nacabtahay iyo qofkaad jeceshahay baad ugu garsoorto taaseen idin faraya wacyigelin kadib kale waxaan rajeynayaa hay'addu inay soo faragelin doonto xafiis walba oo la iman doono marka wada shaqeyn wanaagsan Badar Caafi TV qaranka Boorama